gabadhii naqaska ayaa ku dhigay waa neefsan weeyday halkaas ayay ku dhimatay ninkani lifekiisa ayuu iska sii watay dadka ayuu iskaga sheekeynayay gabadhii ayuu uga sheekeynayay ilaa uu dareemay gabadha xaalkeeda inuu aad u cuslaaday dabadeedna intuu orday صاحبي سو دhowaada mar labaad iyo mar saddexaad waa barnaamijkii aan ugu hadli jirnay mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu yaaka badnaa ee asbuucaas ay saxaafadu ka qorto dunida daafaheeda asbuucan mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu yaaka badnaa ee saxaafadu dunida daafaheeda ka qortay waxay ahayd arrin yaab leh oo walwal iyo walbahaar leh oo uu sameeyay nin dhalinyaro ah oo u dhashay waddanka Ruushka ninkan dhalinyarada ee u dhashay waddanka Ruushka ayaa wuxuu ahaa nin YouTuber ah oo caan ah oo waddanka Ruushka dhexdiisa caan ka ah ninkan ayaa inta badan waxa uu muuqaalo ka sameyn jiray dalabyo iyo codsiyo qaab daran oo ay u soo gudbiyaan daawadayaashiisu dalabyadaas iyo codsiyadaas qaabka daran ee ay u soo gudbin jireen daawadayaashiisu waxay ahaayeen noo soo samee muuqaalo adiga oo saaxiibta baraan ku sameynaya oo dhibaateynaya asna inta badan dalabyadooda iyo codsigooda uu ka soo jawaabi jiray ninkan ayaa maalin dhaweeto wuxuu soo fariistay live YouTube-ka ah isagoo ka jawaabaya mid ka mid ah codsiyo uu soo gudbiyay daawadayaashiisu kaas oo siiyay $1,000 kuna yiri waxaad noo soo samaysaa adiga oo saaxiibta banaanka u saaraya guriga qaybtiisa hoose ee banaanka u saaraya la socda meesha ay waxaan ka dhacayaan waa Ruushka waa magaalo u dhow Moscow caasimadda Ruushkana de waa la socotaan cimiladiisu iyo heerkulku marmar ayuu wuxuu gaaraa -0 yacni ilaa -40 haddii aad banaanka u baxdid adoo yacni haysan wax qabowga iyo barafka kaa celiya oo muddo aad banaanka iska joogtid dhibaato weyn ayaa ka soo gaari karta qabowgaas ninka waxa muusan isdhibin isagoo ka jawaabaya dalabkii asxaabtiisa ee daawadayaashiisa ayuu gabadhii saaxiibtiisa ahayd oo markaas lahayd dhowr asbuuca banaanka u saaray iyadoo dhar khafiif qabto dhar gaaban qabta banaanka ayuu saaray isagoo isleeyahay baraankii ku samee dabadeedna gabadhii banaanka ayuu saaray gabadhu la soco ayay lahayd muddo markii ay banaanka joogtay ayay gabadhii aad u qabowaatay oo barfowday oo de qabowgi ayaa ka tambatay Ruushka marmar ayuu qabowgu wuxuu gaaraa ilaa -40 iyo dheeraad yacni qofku hadduusan haysan wax qabowgaas ka celiya waa dhibaato weyn gabadhii naqaska ayaa ku dhigay waa neefsan weeyday halkaas ayay ku dhimatay ninkani lifekiisa ayuu iska sii watay dadka ayuu iskaga sheekeynayay gabadhii ayuu uga sheekeynayay ilaa uu dareemay gabadha xaalkeeda inuu aad u cuslaaday dabadeedna intuu orday ayuu gabadhii soo qaaday gudaha ayuu soo geliyay waa gabar dhimatay laakiin asagoo isleeyahay way suuxday ama dhibaato kale ayaa gaartay dabadeedna dadka ayuu sheegayaa gabadhu ma neefsan karayso ayuu leeyahay ma hadli karayso ma wadnaha ayaa istaagay dadkiina lifeka way daawanayaan wayna yaaban yihiin gabadhu waa ay dhimatay caadi ayay u dhimatay mar hore ayay dhimatay laakiin isagu ma ogeyn lifekiina waa iska daaran yahay dadkiina waa ay daawanayaan dadki ayuu la hadlayaa gabadhii ayuu taataabanayaa wadnaheeda ma neefsan karayso ayuu leeyahay ilaa ay u yimaadeen gurmidka degdeg ah ayna u sheegeen gabadhan in ay dhimatay isna wuxuu uga warramay inuu baraan ku sameeyay oo banaanka u saaray gurmid degdeg ahna wax u sheegeen in gabadhan ay qabowgi u dhimatay lifekiina weli waa iska socdaa dadkiina waa ay daawanayaan wayna yaaban yihiin dhacdadan ayaa waxay asbuucan mid ka mid ah dhacdooyinka ugu yaaka badnaa ee ay saxaafadu qortay yacni baraanka ayuu ku sameynayay saaxiibtiis laakiin gabadhii waa ay dhimatay waxaan filayaa Soomaalida baraankeegooda inta waa ka sakeeya oo meelo dhow weeye laakiin waxaan rajeynay inaysan halkaas oo kale gaarin inkastoo qabowga wax dilo oo Soomaaliya ka jirin laakiin dhibaatooyin kale oo wax dili kara ayaa iska jiri kara saaxiibayaal dhacdaas ayaan asbuucan soo qaadanay oo kamid ah mid ka mid ah dhacdooyinka ugu yaaka badnaa ee saxaafadu qortay saaxiib haddii aad kanaalka hore ugu taxaneed fadlan like saar haddii aad hadda ku cusub tahayna waxaan ka codsanayaa inaad like iyo subscribe iyo saartid waa mahadsantihiin asbuuc walba waxaan kusoo gudbin doonaa mid ka mid ah dhacdooyinka ugu yaaka badan ee ay saxaafadu asbuucaas qorto waa mahadsantihiin guuleysta